wafdi ballaaran uu hogaaminaya wasiirka arrimaha bulshada ee maamulka kumeel gaarka ee Jubba Macalin Maxamed ayaa maanta soo gaaray degmada Dadaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. wafdigan oo ka soo kici timay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa waxa xarunta weyn ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR oo ku taala degmada Dadaab ay shir saddex geesood kula yeesheen hay'adda UNHCR iyo mas'uuliyiinta xeryaha qaxootiga kaasoo looga hadlayay rabitaanka dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga in ay diyaar u yihiin u laabashada dalkooda hooyo. shirkani oo ay saxaafadda dibadjoog ka ahayd ayaa marka uu soo idlaaday waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka arrimaha bulshada ee maamulka kumeel gaarka ee Jubba Macalin Maxamed waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan. waxaan u imaanay arrimo qaxootiga laga soo sheegay aan u imaanay waan la shirnay xaafadaas hore ee Bafatu waan la shirnay meeshan waan la shirnay labaduba waxaan weydiinay waxay qabaan labaduba waxay noo sheegeen inay rabaan inay noqdaan laakiin ay u baahan yihiin in wax la tuso ay qaarkood meesha tagaan وانا اسكو افكارني انا waxaan ku niri qorta noloshadiina inaan ogaano noloshadiina inaan ogaano rabnay waan isla qaadanay aad iyo aad baan u fiicnay taayigna isla qaadanay aragtidan qaadanay aad u fiicnay sababtoo tahay waxa weeye waxay dareemeen inay u baahan yihiin inay dalku noqdaan laakiin aysan rabin inay inta ka noqdaan oo xagga haddana qaxootiga ku noqdaan waxay rabaan inay noqdaan ogaadaan meesha tagayaan oo kadibna ay si toosa ay dalkooda uga qayb qaataan aad iyo aad baan isku afgaran arrintan ogsoontiin waxay ahayd in ra'iisul wasaaraha barnaamijka Soomaaliya uu yimaado halkan anwar wakiil si uga baaqtay haddana uu imanaya maadaama ay inay qolada ay hore u dalbadeen hadda ka hor maraan Kismaayo soo fiisin garaynay ani hay'adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Soomaaliya waxaan ka socdaa marka annaga iyo UN qolada Kenya Commission maanta Kismaayo kadib qolada Kismaayo waxay naga dalbadeen inay soo fiisin waxay ka dalbadeen UNHCR iyo Kenyaanka inay halkan yimaado waa niyad kacsan yihiin mana aynu fahmin nidaamkan tripartite kama saddex geesoodka heshiiska ma aynu fahmin oo waxay mar walba u qaateen in dadka xeradan u la xirayo Soomaaliya loo daadinayo qorshahan sidaa ma aha awayaan laba nooc baa jira nooc awayaan waa dadka iskooda rabo inay iskaga noqdaan in la caawiyo awal way noqon jireen lama caawin jirin dadka ayaga in la caawiyo Soomaaliya iskaga noqonay tuulooyinka degmooyinka baadiyaha aaday oo Soomaaliya iyo dadka resettlement rasmiga doonayo oo dib-u-dejinta rasmiga kuwaas way dambeeyaan mashruucan arrintan la wada ee tripartite looga tashanay ka mid tahay dawladda Soomaaliya dawladda Kenya iyo UNHCR beesha caalamka iyo dadbixiyaasha isku soo wada duubo imaanshaha wafdigani ayaa imaanaya xilli dhawaanahan la hadal hayay in dib loo celiyo dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Axmed Maxamed Karshe TV-ga caalamiga Royal degmada Dadaab gobolka Waqooyi Bari